gudoomiyaha xisbiga talada Somaliland haya ee kulmiye ee gobolka Togdheer Xasan Mataan iyo wafdi ballaadhan oo hogaaminayo ayaa kormeer indhaindhayna ku tagay deegaanada iyo degmooyinka galbeedka gobolka Buuhoodle oo si absamiya uga socoto diiwaangelinta codbixiyaha doorashadu iyadoo la gudagalay wajigii labaad ee diiwaangelinta deegaanadan uu marayay oo kamid ahaayeen Coodale, Qorlugud, Balicaalale, Qabri Hulul iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Buuhoodle ayaa waxa uu warbixino kaga dhageystay duqeyda odayada iyo dhalinyarada ku hawlan diiwaangelinta kuwaas oo sheegay inay si wanaagsan uga socoto diiwaangelintu deegaanadan deegaanahan waan soo dhaweynay komishinka iyo qoladan doorashooyinka iyo darawalinta iyo dhammaan deegaanaha ka hawlgalay aniguna waxaan doonayaa sidaan uga shaqeeyaan runtii aan uga shaqeyno oo dadkii iyagoo runtii qaarartay ama kayu ku jiray kayuga la xidhin wixii warbixinaya halkan ka jiray diiwaangelintan ama goobahan ka jiray odayada ka warbixiyay meel hadday shaqa ka socoto kale caqabadana way imanayaan caqabado dabiiciyeena way imanayaan kuwo maaragtay aan dabiiciyeena way imanayaan oo farsamahan si kale u imanayaan way imanayaan waxaan leeyahay horta marka hore deegaanka iyo komishanka iyo ilamada ay martidaaba in qolo waliba wixii shaqadeeda ay tixgeliso oo ay ilaaliso aba yaraatee laba qof oo wada hadlayana allaha ka dhigee wax qalaanqala iyo isriixriix iyo waxyaala noocaasa kama dhicin iyadoo taas waa waxaan u hambaleynayaa qolada diiwaangelinta komishinka iyo muraaqabiinta iyo dadweynaha caawinayada gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye Xasan Mataan ayaa isaguna dhankiisa fariin waana iyo wax sheegba ku wargeliyay dadweynaha deegaanadan isagoo kula dardaarmay in muddada hadhay ay dadku ka faa'iideystaan diiwaangelinta codbixiyaha aniga oo gudoomiye xisbiga kulmiye gobolka Togdheer goobahan diiwaangelinta ka socoto waxaan joognaa imika magaalada Coodale ilaa iyo xilliga aanu nimi ee shaqaduna way socotay inaad si wacan u diiwaangelisaan oo dadaashaan oo si daacad ah ugu shaqeysaan oo wax weeye qofku marka uu shaqeynayo hawlahan oo kala haya qaranku uu shaqeynaya qarankana qof kasta xil baa ka saaran marka shaqadii qaranka inay dhalinyaradana gutaan baan aad ugu boorinayaa waana rajaynayaa inay gutaan odayaashana waxaan leeyahay idinkuna dhinaciina inaad ka dadaashaan oo dhalinyarada qudhiina waxa aad la qaban kartaan aad la qabataan idin qudhiina aad dhiirigelisaan waa sax waxaan kaloo leeyahay deegaamadan waxaan ugu baaqayaa diiwaangelintu ka socoto ee ka tirsan gobolka Buuhoodle meel kasta yihiinba inay dadku isdiiwaangeliyaan inay diyaar garoobaan inay iyadoo waqtigii iminka uu kooban yahay oo intii si badnayd xilligii loogu talagalay diiwaangelinta majoritigeedu ay hadhay waxa uu hadhay sanaaduuqdii ahayd xagaad ka codeynaysaaba iyagu shaqadoodii ay harsan tahay marka waxaan leeyahay meeshay doonaan ha joogaan gobolka Togdheer oo dhan marka la yiraahdo cidii aan isdiiwaan gelin degmo kasta ha joogaan inay isdiiwaan geliyaan gobolka Buuhoodle ayaa waxa uu kamid yahay goboladii ugu dambeeyay ee lagu soo xidhayay diiwaangelinta codbixiyaasha dalkan Jamhuuriyadda Somaliland waxaana la filayaa inay ka soo baxdo natiijo wanaagsan Cabsa Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Qorlugud.